bal qiyaas inaad qariirada adduunka eegayso waxaad aragtaa qaaraddu inay ku taalla meel ka fog Aasiya, Yurub iyo Afrika, laakiin markaad si fiican u eegto waxaad ogaanaysaa waxyaab leh. Qaaraddaas waxaa inta badan ka talisa hal dal oo keliya, dalkaasna waa Australia. Australia maaha oo keliya dal ku yaala qaarad, Australia lafteedu waa magaca dalka iyo magaca qaaradda. Taasi waxay ka dhigtay mid ka duwan inta badan meelaha kale ee dunida. Markaad qariirada sii eegto waxaad arkaysaa dalal badan oo ku hareeraysan gobolka loo yaqaano Oceania. Waxaa ka mid ah New Zealand, Fiji, Papua New Guinea iyo jasiirado badan oo ku yaala badweynta Basifiga. Laakiin Australia waa wax ka duwan. Dhulkeeda weyn ayaa qaybta ugu muhiimsan ee qaaradda Australia ah. Dalka Australia wuxuu ka kooban yahay dhulkan iyo jasiiro ay ka mid tahay Tasmania. Haddaba maxaa dhulkan ka dhigaya mid sidaas u gaar ah? Markaad ka soo baxdo magaalooyinka waaweyn waxaad arkaysaa dhul aad u ballaaran, saxarooyin, bannaano iyo buuro iyo meel aad u fog oo aysan dad badani ku nooleen. Dadka Australia intooda badan waxay ku nool yihiin xeebaha, halka gudaha dalka uu yahay mid aad u qalan oo dadkiisu yar yihiin. Laakiin waxaa jira wax kale oo Australia dunida ay kaga duwan tahay xayawaankeeda. Halkan waxaad ka heli kartaa kanguru, koala, wombat iyo platypus, xayawaano badan oo si dabiici ah uga soo baxay dhulkan aan meel kasta dunida laga heli karin. Sababtu waxay qayb ahaan la xiriirtaa xaqiiqo muhiim ah. Australia muddo aad u dheer ayay kaga oneyd qaaradaha kale. Taas waxaa siisay xayawaankeeda iyo dhirtooda fursad ay si gaar ah ugu horumaraan. Laakiin Australia maaha oo keliya xayawaan iyo dhul. Kahor imaatankii Yurub waxaa dhulkan kumanaan sano ka hor ku noolaa dadka asalka u ah Australia, kuwaasoo lahaa dhaqamo iyo xiriir qoto dheer oo ay la lahaayeen dhulka. Kadib waxaa bilowday taariikh cusub. Maanta waxaad Australia ka heli kartaa magaalooyin casri ah sida Sydney iyo Melbourne. Laakiin isla dalkaas waxaad ka safri kartaa meelaha magaalooyinka ah, waxaadna saacado badan kadib geli kartaa dhul aad u furan oo aad u yar. Hal dal, laba muuqaal oo aad u kala duwan, magaalooyin casri ah iyo dhul dabiici oo aad u ballaaran. Markaad qariirada mar kale eegto waxaad fahmaysaa sababta Australia u tahay meel gaar ah. Maaha oo keliya dal ku yaala meel ka mid ah dunida, waa dal magaciisu la wadaago magaca qaaradda uu ku yaalo. Waxaa laga yaabaa intaas ay tahay sababta Australia ay uga mid tahay meelaha ugu yaabka badan qariirada adduunka. Dal iyo qaarad, hal magac.